السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal meel kasta adduunka joogta kusoo dhawaada casharkeena. Maanta wuxuu ku saabsan yahay casharkeena Math Operators. Hawlgalayaal micnaha xisaabaadkii aan soo qaadanay ku dar ka jar ku dhufasho micnaha kuwii aan soo arki jirnay sida micnaha VB loogu sameeyo micnaha taas ayaan ku baranay habka loogu sameeyo. Laba cashar ayaa ka dhigi doona maadaama casharkan cashar aad u dheer uu yahay. Insha Allah saan rajeynaya laba cashar ayaan ka dhigi doonaa. Waxay ahayd sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Math Operators Arithmetic Operators na loo yaqaanaa. Maadooyin qaar aad qorto maadooyinka program language-ka Math Operators na waa dhahan Arithmetic Operators waa micnaha waa ku darti ka jarti ku dhufashadii marka u qeybi kuwii aan noqon gacmo waaye. Operator maxaa wada micnaha operator waa hawlgale askari hawlgal ayaa loo hawlgal micnaha weeyaan wuxuu ku shaqeynaa inuu laba shay isku daro laba shay oo kala jaro laba shay oo isku dhufto micnaha hawlgale micnaha saas micnaha waana asla arki doona calaamadahaas. Marka aan bilaawno marka hore waxaan sameeynaa variable variable marka sameeyo soo barnay kuwa waxa qoraysa ereyga dhim kadib ani waxaan iska qoranaa number 2 kadib calaamada asal xalee waxay iga dhigtaa integer maadaama arabo waxay true dhameystiran kadib number 1 waxaa leeyahay waxay igu shubtaa number 5 kadib console anaa hore usoo barnay console dot right line kadib waxay furtaa bracket halkaas waxaa leeyahay waxay soo daacday ku number warka aan naqaanay balaas aan leeyahay oo jeedina horey ka bilaabay jeedina balaas waxaa leeyahay lambar 5 hor u heysana waxaa leeyahay 5 kale igu dacmo kadib bracket iyo sicir console dot red line marka daan maado sida u jeedin waxay ahayd programkeeni plus 5 ay macnaha plus 5 pluskaas waxay macnaha ka dhigan tahay pluskaas waxay ka dhigan tahay in maaragtay oo isku keen doono number 1 wax ku jira oo qiimaha oo ah number 5 inuu nagu daro pluskaas wuxuu noqonayaa operator wuxuu ka howlgalayaa in kan iyo kan isku dara macnaha waa fahanteen ay operator sababta loogu baxshay magacaas marka safe ayaan leeyahay waan garanaya kan waa ujeedin in la soo daawacay number 10 halkaas balasta waxa ka dhigaa minus safe ayaan leeyahay start ma leeyahay ujeedin in la soo daawacay 0 halkaas minus sidoo kale waxaan dhigi karaa urufus calaamada xidig kullu fashada ay u taagan tahay calaamada xidigta ayaa taabanaysa ujeedin shasha lagu dhufto lacagtiisan sidaas ayaa lagu sameeyaa sidoo kale uqeybin waa ka dhigta calaamad uqeybi kadib kodadka ayaa ka taabanaysaa waa kaas ay kasoo gelinaysaa ujeedin in soo baxda hal 5 uqeybi waa hal haddii aragtid inay wax haraaya soo baxayna ogaato halka waxaa ka dhigi kartaa afar ayaan halkan ka dhigana halkan waxaa ku qoraysaa ereyga ah mod wuxuu ka dhigan yahay wixii haraaya ii sheeg wixii haraaya ii sheeg waa ujeedin 5 haddii loo qasho 4 waxaa soo haraya hal halka haraaya waa kaas oo noo soo ujeedin macnaha sidaas ayaa loo sameeyaa macnaha habkan ayaa loo sameeyaa hababka sidoo kale waxaan sameyn karnaa halka waxaa leedahay balas iyo sidoo kale waxaad sameyn kartaa powerna waad sameyn kartaa shift waxaad qabanaysaa leh calaamad doobras u sameyso kadib waxaa leedahay power 2 5 power 2 laakiin lagu dar balas 4 laakiin sagaal tan jiina ujeedin inuu soo dabacay laakiin sagaal si fiican ay u aragtiin umleeya waa ku dar ka jar ku dhufo u qeybi weliba haraaga sidii modka iyo calaamada powerka intuu waa kuwaas dhan waxaa loo yaqaanaa plus minus operators loo yaqaanaa math operators ama arithmetic operators halkan console dot right line function kan macnaha gudihiisa ayaan isaga darayna macnaha
waxay ahayd wixii Arabi habab kala badan oo loo sameeyana waa jiraan insha Allah casharkan cashar ku xiga ayaan si fiican ugu baran doona hadduu Alla idmo casharkan maanta halkaas uu ku egyahay channelka subscribe hana lo insha Allah commentiga waa kaas wixii aan fahmi weysin casharkan cashar intaas uu noo imaado sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh